سلام دمانتين ساكا waxaan soo galiyay video saad u taqaanaan maamadan la yiraahdo maam milyuun yani iyada la baxday maam milyuun oo caan ay ku tahay maam milyuun magacaas marraba waxaan rabaa dadka inaan waxyaabo u iftiimiyo waxaan rabaa waxyaabo badan oo mugdi ka saaran dadka inaan u iftiimiyo sheekadu ma aha dumar is haysaysta sheekadu ma aha Naciimo Ducaale ama dumar ayaa is haysaysta sheekadu intaas way ka weyn tahay sheekadu ma aha dad baa wax iska sheegay ma aha sheekadu intaas ma aha sheekadu waa amniga qofkii naftiisii oo halis ku jirto anaga reer Minnesota hadaan deganahay waxaan rabaa wax yar inaan idinkaga sheego ummad dad badan waxa laga yaabaa in sheekada ku baraarugsanayn oo idan ogeyn oo moodaya in ma aragtay maamada dad dumar oo is caacaayay oo is heesaysta oo ma aragtay waxyaabo raqiis oo ka turkita ma aha wadankan aan joogno walaalayaal ee waxaan ku loonahay anaga gobolkan Minnesota ee magaaladan Minneapolis saad u ogtihiin ciyaalo badan oo Soomaali ah ayaa iskood 2008kii ma aragtay la dabtay oo cid dirtay malaha wiil ilmaha sirarka ah iyaga ma aragtay maskaxda laga xaday sidii ay ku aadeen Soomaaliya markaas ayaa dad intay kaceen waxay bilaabeen in ay tagaan White House ka tagaan ay u tagaan congressman-ka ay u tagaan ay yiraahdaan masaajidadaas noocaas masaajid hebel iyo masaajid hebel oo waliba masaajidkeena noogu weyn oo magaaladeena Abubakar Sadiiq ayaa ilmaha laga diraa markii ayaa toosh lagu furay intaas oo sano close the door habs intaas oo sano intaasoo sano ayaa lagu waday xataa marka istiraahada masaajidka gal waxaa la hor fadhiyaa FBI hor fadhido masaajidkii la hor fadhiyaa kamarado yani baaritaan wadaadadiya lagu ifiyay xataa wadaadka noogu weyn oo magaaladan jooga xataa baasaboorkii in laga qaatay blacklistiga la geliyay dadka marka waxaan rabaa inaan fahansiiyo walaalayaalow sheekadan waa sheeko amniga qofka naftiir ahaantiisa ay hebelaa wax laga sheegay iyo hebelaa wax tiri iyo intaasoo nin iyo kan iyo sheekadu ma taagna walaalayaal sheekadu meeshaas sheekadu waxay taagan tahay qofka amnigiisa taagan tahay marka maxaa lagu haystaa milyuun oo maxkamadda lagu saaray milyuun waxaa maxkamadda lagu saaray oo lagu haystaa dad maadaama anagii tooshna lagu haayo oo Somali community aad loo ilaalinayo maadaama 18kaas wiil sanadkii ugu dambeeyay hadda laba wiil ah la xiray gabdho iyo wiilal badan xataa waa xiran yihiin qaar iyagoo sii socda ma aha in dadkii iyagiyo ma aragtay Soomaalidii ka qababa muxuu ahaa suspect ka qaba oo hadii qofka farta loogu fiiqo daasid qofkaas waxa la gelinayaa the blacklist waxa la gelinayaa sheekada waxaan rabaa Soomaalida walaalaha inaan fahansiiyo maxaa la iska rabaa Soomaalida inta sheekadu walaalayaal ma aha dad is haysaysto is caayayo oo ana I don't care waxaas ma aha laakiin sheekadu waana idin shidaaya videoyada wax yar isuga marka sheekadu ma aha walaalayaal ma aha waxba laga sheegay iyo waxba la iska sheegay iyo hebela wax laga sheegay iyo sheekadu dumar sheekadu ma taagna sheekadu waxay taagan tahay in milyuun ay rabto in communitygeena wadaadada especially in badan waad maqasheen wadaadkeena Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar ee Abubakar Sadiiq jooga Sheekh Abubakar Sadiiq dhibaato badan ayaa soo martay alxamdulillah markii dambe yani sidii loo baaray waa laga baasaboorkiis waa loo soo celiyay marka waa dad iyagii already wadankeena Soomaali hadaan nahay groupka indhaha duubta oo al-shabaabka la dhaho waa kan ilaa hadda ay joogaan markii qofkii Soomaaliga lagu tilmaamo al-shabaab anteena kacaysa ma garatay marka way ogtahay milyuun leenkan hadda ay bilaawday inay tiraahdo dadkii waa al-shabaab
muxuu ahaa dadkii in eerboodadii ay lagu qabto in eerboodadii dadkii lagu qabto marka waxbayay idmaa weelinin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego dhibaatada ee community-gan aan deganahay waxaanay waxbaa tiri iyo hooyada wax tiri iyo ilmaha sheekadu intaas way ka weyn tahay meeshaan waxa yaala amnigii qofka yacni waa idin shidaaya dadka ay maxkamadaha la taagan tahay hebel iyo hebela iscaayo uma taagna waxay ula taagan tahay in ay ku tilmaantay argagixiso waa al-shabaabka indhaha duubta al-shabaabka indhaha duubta inay ku tilmaantay anagii already fartana lagu fiiqaayo oo ma aragtay ilmo badan oo Soomaali ah ay sidii ku tageen tooshaana lagu ifiyay oo toosh ma aragtay aan ugu ifsan dadkii arrimaha ka dambeeyay oo Sheekh Abubakar Sadiiq dhibaatada waagaas galiyay meeshay ku dambeeyeen reer Minnesota hala weydiyo qaara gabdho badan oo waxa asaas ahaaya jiray oo ma sha Allah iska shaqaysan jiray magaaladooda ku jiray markay arrimahaas iyo masaajidadii galeen guriyaha dadka waalidey hadda ku xirxidhan joogaan marka qofkii ummadda ku mashquula muxuu ahaa isagana ilaaha ku maqan laakiinse wadankan la joogo sharci uu leeyahay qofna ma rabo in la dhibaateeyo qofna ma rabo in markuu airportka tago airportka marka anaga aadno hadda aan ahaan xataa marka aan tago dumar ahaan gabdhaha kale markay meesha galaa inaan fahansiiyaan rabaa dadka reer Minnesota maamada cidna salaanka ma qaad waa la yaqaanaa laakiin dadka qurbaha iyo dadka Yurub iyo jooga oo u maleynaayo in la dulminayo ma aha in la dulminayo iyadii waa the other way around iyadii aad dadka dulminayso haba iska dunta caay iyo ma ahayn sheekadii waxay taagan tahay inaan al-shabaab ay dadkii ku tilmaamayso indhihiina macalinidii ah waana kana fiidiyoyadeeda afkeeda aad ku maqlaysaan dadka ay maxkamadaha u saaran tahay dhageysta yaa gardaran yaa dadka ay maxkamadaha la taagan tahay hadda ka hor baan sheegay naagtaas inay al-shabaab tahay inay naagtaasu al-shabaab tahay waxa ay walaaqaysana waxyaalaha ay faragelisay haddii wax yaroo saxara gaaraan ayadaa u koolbatuu ah gabdhaha yaryarkaa iswata ya ee ay u dhacday ya waxay ugu dhacday ayadaa taqaanee ay u dhacday hadday saxar gaaro adaa ka mas-uula saxar hadduu gaaro hadda dowladda Ameerikana waa kuu qalqaya saxar hadduu gaaro adaa ka mas-uula aamina waa al-shabaab aamina waa jaamac siyaad aamina Minneapolis bay degan tahay aamina caruuraha magaalada yaryarka ah oo dhan gurigeeday ku shirisaa wiilashana gurigeeday ku shirisaa gabdhahana gurigeeday ku shirisaa gurigaygana wax badan uma jirto هاتري مقلس دقينا كم قشين قبل بسوق قادتي وهويو دور يتوبن عيالها هي 16 قيستا مقعد انت سوق قادي بيوحي لهذا هي والشباب مركا هي إذا كجدين دمر إسهيستا إيو شاكذا معها شاكذا وحوي قبله مركا يراهدين وحن نجد جوجي أو وحن أسميني سدا وحي ترى هدار ربطان فيديو إن كسارو وإنا الله بكون عاد سيسان ماشي وحين نقطة إسبارة إنك فيسبوك إن إسبارة دقته هذا نك وحين كلو ربع إنا إذين شاقو ما مليون شقوين كي إنكار بك قد عضي شقوين كي ولا قصة فايري نقال حمو أياه هيسي ها نقال حما كل عضي مرك وحين ربع إنا كده دعسيو إني لينين ما أركت إذين كدبكي مد ريمي كرتان لكن أنا جي ماشي نشوقنا ضدك مقالة نشوقة منولا ضدك وحين كلها هاي warwadan kan hadii toosh lagu ifiyo dad islaam horta number 1 la heerto dad muslimadii lagu bursanaya waa ogtiin caalamka islaamka waxa ka socda waa ogtiin maanta qof meel walba al-shabaab hadii asasta loo wada istaagaya gurigaaga hal mar bando la gelinaya waxay tiri aamina cali gurigeedana waa aqaana kamarad baan la hor istaagaya maxaan u bandhigayaa dawladda Mareykanka u bandhiga wayna sameysay exactly maamadii intay u tagtay markay videoga aragtay videogan maxay iga soo gelisay waxay tiri waa inaad 2 kun keentaa dib damba kaaga ma hadlaayo marka
fed ma aha waa wal arkaysan suga marka waxay laakiin waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed beenta aan ka hadlay MMS why it's me it is me okay so adowga MMS baa idin bilaabaya MMS adowgeeda waxay rabaan dhaqankii hore oo soo jireenka ahaa inay MMS ku dhaqanto adowga MMS ama adowgayga so wuxuu rabaa waxaan aan ka hadlayo inuu weligiis jiro oo aan laga hadlinin adowgayga wuxuu rabaa qaladkii asagu uu galay inuu u dagaalamo sida u siisa ما وحبا يدكم عاجزين لكن فيديوهات it goes on and on إلى قف كستو كتل مانتو الشباب آمنة علي والشباب نعمدو على والشباب سياد والشباب إسلانته نعبيت كدنتو والشباب ويلش يلطش والشباب حتى إربودي حتى إن عيالكي مقعيض ماشي كشكت لو قبطو أو لو سميه ما أعرف كنا قبل هذا كهر هاي الدجن ninkeeda inta isqabteen ku tiri waa al-shabaab ilaa hadda wadanka xataa kama bixi karo sidii loogu dhagan yahay marka it's very serious allegation waa wax serious wax la iska dhahdhaha oo yaani Soomaalidu waxaan dhaqan u leenahay iska daa waxaan iska wixii haday naftaada ay halis gelinayaan oo xataa aajal ku mudanaysid ma number 1 dad madow baan nahay number 2 islaam aan nahay wadankii qariibaan ku nahay toosh ayaa already nagu ifsan ma garatay marka ها مركا هدي dadku waxay yiraahdaan Soomaalidu way waalan tahay laakiin maanta ninkii xaakinka ahaa ninkii uu doodayay ugu doodeen inay waalan tahay waa la baaray waxa la yiri she's fit ma garatay marka qof waalan ma aha ha ka dhigin inay waalan tahay she's all driven waxaan waxay u sameynayso lacag ay u sameynaysaa waa baad isbaaro Facebook ee dhigatay waa isbaaro ee dhigatay meesha dhigatay markii aan loo maleynin in ma aragtay iyada la target gareynaayo oo ma arkino ma aha iyada cidna ma target gareynayso cidna ma aragtay ma daba socoto cidna wax kama rabto iyadii ayaa ummadii ku tilmaamaysa inay yihiin argagixiso terrorist group ayuu qofkan kamid yahay hadaa tiraahdo reer Minnesota ama reer Mareykan Google gareeya what does that mean maxay taas maxay tahay wax weyn waa uu qofka xataa naft reerkiisa maxkamad dhibaato badan waxaasna waxay u sameynayso waxaas waxay u sameynaysana waxa weeye muxuu ahaa say lacag uga hesho ayay waxaas u sameynaysaa marka dadkiina dadka reer Mareykan way ogyiin waxay tahay laakiin waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliya dadka Afrikaas jooga dadka Asia dadkan ama Yurub jooga وملاينا ما عرفت حقوق الضمر كان قضاء وذا ددي شقمر كما أمان هلايو وذا قف كأمان هلاي ملأ يعني أمدي وقوة دجنتها وorganization وجروب ما عرفت ساعد إذا شيء إن دين توحلق الشيء إن دين تلدقيه إن ما عرفت حجاب وحلق الشيء إن she's always وحي target جريسة دين target جريسة ما قرأت مركب معها ما أها محو أها ها إسبارة وإسبارة فيسبوك هدا عرفتان وحكود جيران دلت إكود جيران وجروب بدن إسبهايستي ما قرأت سيدا بعد دتك لوجا قاضو سيدا ما أركي نقف لوجا نحيو سيدا قبلها مركي إسلام مركي بإتراد نايا العكين اللي هذا هديك اللي فيسبوك كسور دقايا مركاسي قبلي أردايا مش قيس مليون مش قيسو هدا ودن كان دتك تشوج من الصوت سمعتكم ملها ما شقيسو قف سلانك قاعدة حتى ملها قولي ما أنت وحي شوكتي محكمة دي الماء دش حتى مصور راعين قف صور راعي ملها she's all alone مركدت كينان أصعبتوا معي أو ملينا إن ما عملوا لجينها أم لدبها يستنوا you guys are wrong عدة بس عتملة لكن يدي أي أمان لجيه لجواي عاي دفت عايز دب حتى ملها وحوين معها
qofka hadduu ma aragta xataa ku caayo laakiin waxeeda waa waxa anaga dadka ay ku haysato waa terrorist in ay yihiin dadka indhaha xirto lacag ay diraan ay dadkaas ma arkin u shaqeeyaan marka saas ula socda saas ula socda مليون ساعة أختي صدق عيالي leedahay wiil ka mid ah 15 goor la xiray waa 30 jir jeelku ku jira ciyaalkeedii fara ugu ma jiraan yani qofka sidaas ah oo hadda u soo jeestay mujtamaci contract ku soo qaatay diiniyan yani dadkaas waa in waxa xun la qabtaa waxa ma aragtay intayna ku soo waa in la qabtaa mar hore hadii maamada la qaban lahaa waagii hore qof iska masaakiin oo arrimaheeda ka hadashay ahayd oo ma aragtay iska vulnerable ah yes qof kasta iska may daaqili jirin wadaadada iyo diinta iyo dadka iyo personal ma arkin oo noloshaas may gali jirin iyadoo ba iska hadli jirtay and that was fine anigu waxaas dib uma arko ma garan qofka naftiisa ka hadlo laakiinse markii dambe sheeko waxay dhexda laga qabsaday maamada dad baa dhexda ka qabsaday oo Facebook ka qabsaday oo wallahi billahi I feel sorry for her ayaa uga naxaa because way use gareynayaan ma garat maanta waxay tiri maxkamadda nicmadu caalam maxaan ka soo doonay is pertaining to waxa dadkan ku haysatid anigana waa igu tiri dadkan aniga iyaga adaa isu kaaya keenay dadka meesha joogay maba is aqoonin xataa laakiin maxaa isugu nimi milyuunan meesha noo wada keentay because isku wax un bay na leedahay qof kasta wuxuu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim ma arkin ma maqlin wali bismillaah maxay iga rabtaa dadka dhan waa yaabin maxay iga rabtaa marka meeshan baada ka socoto meeshan waxa la rabaa in ay dadka ay baado haddana waxa kale idin sheegaya Minnesota caanay ka tahay sixirka aad ay ugu dheeraysaa milyuun sixirka aad mana iga ah wallahi laakiin waxaan rabaa in dadka aan ka waaniyo qofka hadduu sixirka yaqaano please fadlan iska ilaaliya أنا وحبي ما قاعد كرتق إسحجاب لكن سجبنا بدنا حتى أنت يسوي عن يراهدين أنا جربين حتى إن نداونه وحارجنا أنا وقصي عرضنا أنت هذا في سنين أتكارت أخرسه وحبات دت كيكسو جيدته سحر كأد أي أتقانا مرة والبويدين صار قشامشان يضو توكسنا يسلعق ولا يسلعق هالإسيون ضبا ما أركتئون لكن all that وحكي ترملها اليون علماء عامو iyadii ayaa meel laga istaago la la'yahay culumo iyo caamo iyadii ayaa meel laga istaago la la'yahay oo dadkii ku tilmaamayso wadanka anaga aan joogno waxaan rabnaa in aan u joogno amni u joogno in aan ku joogno nabad aan ku joognaan rabnaa ma rabno in ma aragtay booliis iyo maxkamad iyo hiririg aan ku joogno ma rabno milyuun saa ogtihiin ma garanayo ma shaqaysato guri dawladeeda iska dhex fadhidaa shaqadeedu waa in ay marba qof ay soo qabato oo tiraahdo hebel oo lacag isi ama ma aragtay hadii aad baad ay ka raadiso haduu siin waayo lacagta qofkaas ay meeshan soo dhigto sheekadaasna kaligeed kuma jirto waa saa idin sheegay waa meel Facebook dad dalaayad ah waa dad badan waa dhowr qof oo badan islaantan galiyay meesha markii hore sheekadan kuma jirin nafteeda ka hadli jirtay ma aragtay waxyaabo caadi dadka iska wacyi gelin jirtay laakiin bilooyinkii ugu dambeeyay waxay bilowday inay waxaan samayso dad badan hadda ma soo geliso maxkamadda maalin kasta iyada la geenaya mar walba iyada la sii jiidaa maxkamadda la geenaya marka ha may walaalayaal ceeb way dhaaftay sheekadan ceeb waxay taagan tahay airportkii markii la aado in qofkii xataa uu wadankii ka bixi karin uu socon karin oo ma arkino blacklistiga la geliyo waa in anaga wadankan anaga joogna anaga idinkaga warnoon wixii ma aragtay qofka markuu meesha joogo situationka joogo sharciga meesha iyo isaga kaaga waroon waxa laga inaa meel kale joogtaan oo sheekadii ma arkin wixii la xeerinayo hadii xataa adiga iska daysid iyagii aan ku deyneynin dadkii dawladda oo magacaaga inta la qaaday meesha la geliyay ayaan ku deyneynin toosh ayaa lagugu ifinaya wayn ku ballan qaaday in ay dad badan dawladda u dhiibto aimkeeda waxa waaye markii isbaaradaas ay meesha dhigatay oo lacagta la siin waayay inay dadka qaado ee jeelashooda geyso ma aha qof ay wax u qabanaysa male cidna kuma haysato inay u doodo dumarka iyo ciyaalka inay dadka masaakiinta ah ay u doodo cidna ma dhahayso laakiinse 90% waa aragteen dad un bay wax ka sheegaysaa dad un bay ma aragtay dulminaysaa namiimnimo
wax unbay maanta oo dhan kala wadaa ma garat aniga maanta oo dhan iga sheegto ma kala jecli laakiin the only thing I cares about halka wax oo aniga aan ka soo qaadanayo waa qaybtaas ay dhehayso argagixisa waxa kale waa sheeko dumar waaye ma garat waxa kale ma raba inaan waqti ku dhumiyo heblaasaan tiri iyo heblaasad waxaas sheeko dumar waaye laakiin waxaan rabaa inaan kasoo qaato the main point weyn oo ma aragtay culays kale oo wadankan culays ku leh waxa weeye qofkan waa argagixiso shayga argagixisa hadda waa aragtay the war in terror gruubyo dhanaaba ay leeyihiin marka hadda maalin dhaweyd way baxday ramadaan samarkii waxay aaday gabar oo Soomaali ahayd oo diinta ka baxday oo halkaas joogto marka waa iska programyo loo soo dhiibay inay ma arkin oo diinta wax ka sheegto inay xijaabka wax ka sheegto inay ma aragtay diintii dadkii nacsiiso ay ka dhigto ma aragtay dad mar walba waxay tiraa Soomaalida been baa taqaanaan fraud baa taqaanaa haddii runta la sheego Mareykanka aan joogno dadka madowga ah markay wax dhacayaan si ma aragtay waxa laga yaabaa inuu meel jabsado oo wax yar ka soo qaato ama $1 ama wax yacni physical u sameeyo laakiin dadkan halkan jooga ee cadaanka ah waxa la dhahaa white collar crime qalinkaasay wax ku qaataan qalinkaas tuuganimada ugu badan wadankan waxa ka sameeyo cadaanka waay ma cadaanka waay tuuganimada ugu badan waxa sameeya milyuun waxyaabo badan ay fahansaneen waxay u maleysaa ma aragtay Soomaalidu waa tuugooyin Soomaalidu dadkay dhacaan Soomaalidu waa been miiran Soomaalidu waa saan waaga Soomaali joogni waxaan la dhihi jiray oo maqli jiray alla gaalada been u sheegaan alla gaalada xan ma yaqaanaan wallahi billahi meesha ka shaqay intu xataa qofka sii socdo indhahaas ay qofka ka xamanaya qof dadka xan badan ma jiro tuuganimo markay noqotona qalinka iyagu wax ku xadaan waxa arkaysaa hadda nimankan waaweyn in hadda maalin yahuudo la xiraayay maxaa la dhahaa magaciisa iisoo sheegay magaciisa 2002 sano ka hor ma ahayd dadku wuxuu ku yiraahdaa lacag ii keena aan waxay idin gelinayaa investment lacagtiina ayaan idinku shaqaynayaa lacag kale idin dhalaysaa dadka cadaanka ah lacagaha ay xadaan millions waay qofka madooga wadankan joogan waxa lagu xiraayo uu xadaayo waa wax ma aragtay aan weyneyn marka milyan inay fahanto waaye dadka tuugada ugu badan waa dadka qalinka white collar crime la dhahaa qalinkaasay violent ma qalinkaas dhag lacagta iyaga isku qorayaan bangi lacagta iyaga isku check iyaga isku qorayaan saasay wax ku xadaan wax ka been badanna ma jiro there is no one oo ka been badan cadaanka malaha waa ku qoslayaan ismail kaaseti marka baxadid stab you in the back marka wixii xun baxaa waa la dhahay wixii xun ba Soomaaliya loo waxeeyaa marka No, she can be my mom. It's not like mom you has the lagama hadlaya waxa laga hadlayaa qof mujtamaci anaga meesha aan joogno dhibaato ku haya ma garat mujtamaci aan joognay milyan magaalada ay joogto qofna lama hadlo qofna uma tago dad qof kasta caanay ka tahay ma garat waa laga wada cararaya waxa laga wada cararaya wax kale ma aha kamaradaas ay wadataa yaani qof kasta wuxuu leeyahay ama meeshan ku soo dhigtaa marka dhigitaanka oo cay iyo waxaasna ma aha laakiin waxa dadkii waxay dhaysaa waa argagixiso dawladda idin dhiibaya kana idin dhiibaya hadda markasta waxay tiraahdaa lawyerka immigration lawyer aan ku qabsanaya lacagta aniga immigration lawyer igu qabsanayso wadanka aniga sharciyan ku jooga 20 years aan deganaa waligay maxkamadan ima geynin I never committed crime dadna wax ma yeelin maxkamadda lacagta aniga igu geynayso milyuun advice aan siinaya wiilkeeda yar oo 23 jirka ah oo jeelka Hennepin County ku xiran oo labada mar feloniga lagu sameeyay ilmaheeda waa ka hadli karaa because ilmahayga way ka hadashay ay tiri argagixisa way ku sheegtay ciyaalkayga marka ilmaha si advice wiilkeeda ma caynaa laakiin lacagta aniga igelinayso ama ay maxkamadda maanta ugu yaray waxa laga yaabaa inay inta soo kun ka baxday waxa uga baahan wiilkeeda 23 jirka ah oo 15 goor la xiray haddana xiran oo laba feloni haysta marka kaas hasiiso kaasna ha ku teekay garayso uma baahna in ay lacagta ma arkin oo lacag free meel iska gelgeliso
sabi ma aha ilmaheeda ka ugu yar waa 19 years wiilka hadda ka hadlayo waa 23 jir wax kale laguma hadlayo lacagta ay dadka gelinayso looyarada gelinayso ilmaheeda uga baahan ma garatay waxa waa adig iyo dawladii wax ka qaadanaysid oo ma aragtay dhaqaale badan haysaninba inaad maxkamad 24 hours taagnaatid oo lacag aba u baahan meel kale aad gelisid lacag aad shaqaysatid day ahaan lahayd waa lacag oo dadka Facebook iyo dadka ay usoo diraan ee dadka isbaarada u dhigatay dad badan hadeerta ay haysatay way iskaga hareen markay lacag ku aamusiyeen please na amaana siina dadna waa kuwa hadda maxkamadda u taagan marka sheekada ay idin bedelin ani wax kale kama rabo ma wax kale aniga kama rabo personal attack ma aha waxa waaye waxaan waa community problem waa dhibaato communitygeena haysata weey ma aha laba qof ay haysta sheekada ma aha oo waxa laga dadka meesha imaamada haysato waa almost 20 waa ka badan yihiin maantana maxkamadii waxay ku dhamaatay in muxuu ahaa dib fiidiyoyadii halkaan ee dadkii ku tir argixisay waaye iyo dadkii dhibaatada ka soo gaartay ee boodada lagu qaqabsaday oo lagu dhibaateeyay because iyadii ay dadka ka farta ku fiiqday oo blacklistiga la geliyay qofkii Mareykanka joogo Minnesota joogo baa garan kara dhibaatada marka lagu sheego qofka argagixiso iyo dhibaatada ay leedahay qof kale ma garan karo ma garatay halkaan waxaan u joognaa inaan ilmo ku korsano inaan iska shaqaysano in aan ma aragtay wadanka sharcigiisa dhowrno ma rabno in labelna lagu dhajiyo oo aan eeriboodadii tagi weyno anoo hadda waxba la igu label garaynin bahad oo caadi aba iska bada hadda ay label garaysayba ayaan markaa meesha tago aniga dhan saas la ii baaraa inta qol gooni la geliyo ayaa la ii baaranaa qof kasta intuu maro aniga laakiin maadaama aan qof islaam ah hoganahay meel gooni la ii waxaya marka anaaba already anaga dad islaam ah dhibkaas ku jirnaba already oo ma aragtay in toos lagu furo marka insha Allah intaas rabina idin sheego maxkamadda waxay u sii soconaysaa January 8 qofkii rabo iman kara marka waxa weey dadku waxay rabaan in just naftooda amaan loo siiyo dadkii maanta waxay ku doodayeen in amaan ay nasiisan baan rabnaa maamadan waxba kama rabno marka maxkamadaha way badan yihiin kuwa kala soo socda waxa waa sheekadu way badan tahay waxaan meesha u tagayna way qusaysaa because aniga igu tilmaamtay argagixiso wiilkayga argagixiso ku tilmaamtay marka marka insha Allah waa idinka sii tagaya hadduu Ilaahay yiraahdo marka milyuun waa iska soo dhamaanaysaa waxa waay wax kasta bilow way leeyihiin wayna dhamaanayaan يعني وحنا نصيب درا أمام أنت سلاج إن ما أنت اللي جيدو ولا سي جيدو ولا سو جيدو ولا سي جيدو ولا سو هذا نوع حواي she never learns سومالد وحي أقول لي برجلين إني والنتهاي لكن نينكي lawyer كأها كم دودا إني والنتهاي ما أنت والله كل جيدة إيه عنو جيدا شيء حتى مسرعين لما المود صدق هذا الشيء ويل جالكم بكجرا في the last 6 months جالكم بكجرا مركب مليون وحي أبا أنتهاي advice إن السيو please waqtiga aad meeshaan gelinaysid iyo ilmahaaga geli wiilkaaga yarka ah rehab gee he have drinking problem rehab geeso take care garayso ma garatay gabadheeda nin aa guursaday bil 2 bilood markuu qabay way ka furtay wiilkii yaraa oo hadda ugu yaraa 19 jirka ahaa ka cararay aabihiisu aaday marka qol cidlo kaligeed iska fadhidaa waxay ku mashquushay inay ummadii ma aragtay ay gaaladii faraha ugu fiiqdo marka waxay u baahan tahay this is lesson to everyone oo intuu soo galo miliyun kaliya ma qusayso sheekadan waxay qusaysaa everyone oo maleynaa inay dadka iska caayi karaan terrorist way dhihi karaan looma baahna qof weyn waaye waxaa la rabay inay dadka hagto maanta ma ahayn maanta tii miliyun inay dadka caayda ma ahayn maanta inay ma aragtay maanta dadku ilmaha ku soo laabata ma ahayn inay ilmihi yar yaraa toosh ku furta ma ahayn marka insha Allah waa idinka tagayaa salaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.